Bismillahirrahmanirrahiim. Allahu akbar. Waxaan filayaa inay tahay markii labaad aynu isugu nimaadno muuqaal fiidiyoya iyo maanso. Waa mid kale oo ka mid ah maansooyinkayga. Tii iyada ka horreysay waa maansadii gadaal noqod iyo wiilkii carruurtiisii gabadhiisii kala daba taariibay. Maansadani cusubi aniga dareen gaar ah ayay gelisay. qisada ay ku timina waa qiso kale oo jacayl ah, qoys ka mid ah qoysaska Soomaalida dhex martay. fasaxana ayagaa bixiyey. laba dhalinyaro wey dugsiga sare wada dhigtaan. kalgacayl iyo jacayl ka xaqiiqada ah ee mustaqbal doonka waa dhex maray. hab dhaqan ku saabsan, hab akhlaaqeed ku saabsan, nolol doonidii ka muuqato niyadda iyo qalbiga. sanadkii dugsiga sare intuu dhammaanay waa wada socdeen. kalgacaylkooda mid buu ahaa, farxadooda mid bay ahayd, xanuunkooda mid buu ahaa, noloshoodana mid bay ahayd. waxay ku kala duwanaayeen labada goobood ay kala seexdaan oo ahaa mid waliba guriga waalidkii. dugsigii sare waxa uu dhammaaday iyadoo midba midka kale qalbigiisa ku jiro. wiilku waa danyar, iyadoo wax badan ma dhaanto. scholarship buu helay inuu waalid kala shaqeeyey. dalka Hindiya ayuu scholarship ka helay. waa ballameen, waxay isku ogaadeen anna wax baan kuu soo dhiganayaa, adna halkan wax ka sii baro, waanaynu isku maqannay. waad qiyaasi kartaa laba qof oo muddo wada socday, jacayl xaqiiqi ka socday kala taagitoogeed. waxbuu soo kordhiyey kala dheeroonteedii iyo kala maqnaantoodii. wuxuu soo kordhiyey hilow, booliyow iyo khilaaf hor leh oo uu qayb ka yahay jacaylka faraha badan leh iyo kala maqnaanshaha fog. sabab intaasi u tahay muddo 2 sannadooda markii uu xagga inanka wax ku dhiganayay, xaaladii jacaylku intii way ka badatay, dareenku intii waa ka batay, culayskuna mid kasta intii uu ka batay. mar iyo lababa iyada waalidkeeda arrimo guri waa la soo hadal qaaday oo iyada xaggeeda kamaysa qarina way u sheegtay mid iyo labadaaba. isna culaysku korodh. inantii taagta waxay isbaatay inay ninkan culays saarto si isagoo halkaa u jooga ay waradiisa u noqoto, meher ugu dhaco, iyadoo ka walwal qabta weydina sugaayey, xumaan kalena aanay uga jeedin. culays bay saartay. sidan kuguma sugi karayadaa badatay. waalidkiibaa waxbaa isu yimi, duruufo nololeed iyo xaalado iyo amuura isu yimi. yarkii culays baa ku kordhay, warwar baa ku kordhay, fikir baa ku kordhay, dhan iyo xaalad baa ku kordhay. hawshiisina dhan buu ka wataa. mar iyo labuu taraygarayuu isku dayey bal inuu inantaasi siday doonaysaa suuro gasho. adduun baase gabay. jeebadda aabbihiina wax badani kuma jiraan, tawayadiina hadalkeeda badaa. curad baa ka weyn, isna adduun ma hayo. qof iyo laba intuu cid wax weydiinayn uu la hadlo wuu ku hungoobay. go-aan aniga igu cusub, qaadashadiisu orana aanan u maqal ayuu yarki qaatay. qoraal kuma arag, buug kama akhriin, meel weligay yarkaasi u qaatay. wuxuu go-aan ku gaadhay labadiisa keliyood inuu mid cuno, weliba ta midigta. qarashka laga siistana jacaylkiisa ku dabaro. dhakhtar buu tegey, xaaladaas u bandhigay. ninkii dhakhtarkaa wuxuu ku yidhi marka la soo fikroy kale. uu soo fikray, uu ku noqday, wuu celiyey, wuxuu ku yidhi soo fikir. uu soo fikray, uu ku noqday, soo qaada looyarkuu noqda. waa kaxaysta miduu fikirkiisa ka dhaadhiciyey.
yarkii lacag waxoogaaya ayaa farta laga saaray, qalliinkiina u sameeyey, kelidiina waa lagala baxay. fasaxeer jaaniskiisi buu ku beegay, dhig buu soo yidhi, diyaaraddii buu soo raacay isagoo bilaa keliya. mudduu halkaa ku yara nastay, halkanuu yimi. gabadhii buu dee u sheegay markuu soo baxay inuu diyaar yahay. iyadu horeba waxay ugu tiri wax yar baan hayaa ee waxaan wax ku soo kordhi. wixii ay haysay haatan uma baahna, waa nin kelidiisi cunaya. waa u fadhiistay, qurux baa loogu beheriyey, sacabkaa loo tumay, sawiraa la qaaday, waa la isugu yimi, asxaabtaa hambalyaysay. qayb naftiisa ka mid ah ayuu qofkiisii ku helay. waa nin iyo gabadhiisii kulme noqoy, jaamacaddiisiibuu ku noqday, intiibay uur yeelatay. waxbarashadii iyadu ay wadatay waa ka hadhay markay gabadh culus noqotay. markuu ogaaday inay xilligii gabadhiisu soo dhadhowday tahay, ayuu mar soo yara big yidhi, xaaladdeedu ka war helay, waxbarashadiiba ku noqday. ilmihii wuxuu dhashay isagoo jaamacaddii ku jira. muddo yar baa uga harsanaydee waa dhammaystay. waddankuu guri buu la galay. iyada iminka culayskii intuu maqnaa waa ka raysatay, waa qofkeedii. cabsi badan oo waad waayi meesha ma taallo, laakiin dareenka jacaylku iyo qalbiyadu sidii bay maqnaanshaha isu tabayaan. waayahay, guri bay galeen, nolol fiican oo qurux badan bay qaybsadeen. muddo 2 sannadooda oo ilmihii ay leeyihiin ka tegay inankii, xaalad caafimaad baa la soo daraystay. wuu yara adkaystay, dhakhtarka waa ka meermeeray. markii dambena yaaliin buu soo dhacay. soo dhicidii uu soo dhacay baa dhakhtarka la geeyey. aabbihii hooyadiiba waa nool yihiin. dhakhtarka la isugu tegey. markii dhakhtarkii la geeyey, baaritaankii dhakhtarka kadib wuxuu ku yidhi, ninkan waalidkii mi waa kan baa la yidhi, tanna waa gabadhiisii. wuxuu yidhi, ninkan keli baa ka maqan, ninkan keli baa ka maqan. aabbihii wuxuu ku yidhi, waade dhakhtar, ma midaan ilaahay u abuurin baa, mise maya waa lagala baxay buu yidhi. hooyadii baa maqlaysay, gabadhii baa maqlaysay, xaaladdaa isbedeshay. waa maqsinkii beeshin ku yaalay oo gaara. gabadhii waa adkaysan weyday, xaaladii farahay ka baxday. waxayse moodayaan waxa jira waxaan ahayn. wuu ka soo baxay koomadii. aabbihii iyo dhakhtarkii baa u galay iyo xaaskiisii. hooyadii lamay socon markaa. su-aalunbaa meesha taallee. wuxuu weydiiyey dhakhtarkii, adeer, xubnahaaga jidhka mid baa maqan, waana kelida midig, waana laga saaray. ma ka warqabtaa maxaase ku dhacay? jawaabtiisi waxay noqotay, ilmo. sidaa uma weyne, bukaan jiifa, saasuu barkima ugu jiifa. ilmadiisaa dhagaha gashay. aabbihii wuxuu ku yidhi, aabba haweenayii jawaab. wuxuu ku yidhi, aabba gaa cunay, lacag baana siistay si aan xaaskaygaa ugu helana. anigaa kelidaydii dhakhtarka iibiyey, adduunlaaniya jeebkaygaana sababay. gabadhana maan ka maarmi karayn. inankaa caday sinta ku sidaana ka dhashay ee sanadkii wuxoogaaga sanad jira. waxyaab labay noqotay. inantii mar allaaliya markii ay maqashay kelidii reerkayganu saaray si aan u helo, way qaraacantay, koomay geli gaadhay. xataa dhakhtarka uu calooladay lagu tiriyaa ilmaa ka timi. ninkii dhakhtarka ahaa inankii aabbihii wuxuu ku yidhi, imika uma baahnin sawaalo fara badan, sabab iyo amuurtaa looma baahna. ninkani keli buu baahanyay, waxaana xanuunaya sakaraadka uu yahay waa kelidiisii, mana noolaanaya haddaanu kelidii helin.
jawaabba intaan cilli bixin gabadhiis baalkan ka soo booday dhanna ka ooyeysa dhanna inay hadasho ka rabta wuxuu hadalkeeda ku fahmay dhakhtarku labadayduba anaa u saaray hadduu u baahay ee ma ii noolaanaya dhakhtarku wuxuu ku yidhi adeer allaha ku sharfo labadaadaba uma baahnee taada midunbuu u baahay idinkan idin kala saarayna waa in qalin dibaddaa marka laydin diyaaraya xaaladaas halkaasay istaagtay dhakhtar dibaddaaba loo diyaariyey waa lagala shaqeeyey labadii ubadahaaba waa la qaaday indiya dib loogu celiyey dhakhtar baa la jiifiyey keliyaha loo kala saaray inankii iyo inantiiba markii qalinkoodu dhamaaday muddo in yara kadib waxoogaa saacadaa kadib dhakhtarkii inanka aabihii jawaab ku soo celiyey oo isagu la socday markaa iyo nin u adeer oo u fudayey in halkaa tagaan wuxuu ku yidhi qaliinka waan ku guulaysanay laakiin ilama aha inuu inankaaga noolaanayo sababo qaliinkii hore quseeya iyo sababo qaliinkan dambe quseeyaba ninkaasi inuu nolo leeyahay ta ilaahay mooyahay ilama aha gabadhisa iyada xaaladeeda okay kelidii maadoo saarin buu yidhi mee kelidii waa loo kala saaray mee niyo qaliinkii wax ka qaldameen hore kan dambana dee sidiibaa ninkan nin ilaahay qaadanayo ayuu la muuqdaa isma qarinaysay gabadhiisa waa loo sheegay in qaliinkii ninkeeda lagu kala duuraystay qaliinka hore dhan wax ka raacay ninkaasina heeruu dhowiyey maansadu labadaa qof waxay isidhaahdeen iyo xaaladdaa ayay horta qusaysaa qisadii maansadaba gabadhaa fasaxday oo annagu saragnay wuxuu ku leeyahay waa dardaaran macno dardaaran laba qof maqsinku beeshinku ku ahaa ku wada hadlaya iyadoo haatan markay waxoogaa sariirtii iska jiiftay maalmin dambe waa iska kacday isna waa kan iska liita maqsinkay ugu gashay waa ilaahay iyo iyada iyo isaga afkii ay ku wada hadlayeen oo isu hogaamaysan marka inankaa kalidiisa u galay si uu gabadhiisa u helo aabbahaas nolosha bila'aadanku uga dardaari weliyey inuu ka tegayo inkastoo aqoontana ilaahay bila'aadmigu siiyo haddana loo sheegay geeridiisa wuxuu yidhi hasaluugin qalinkiyo qadarkiyo wixii dhacay hasaluugin qaybkiyo wixii nolosha kuu qoran rabbi baa naf qaadee ha qawadin haddaan tago waa qaali samurkiyo ha ka tegin mid qaraweyn ballan iigu qaadoo indhahaagu yay qubin ilmo dhabanka qoyso qayliyo baroor qudha qowlkaagu yuu noqon ballan iigu qaadoo haddaad tahay qofkaygii dibintood qaniintiya ha isqoomamaynoo qalbigaagu yuu jabin ballan iigu qaadoo quruxdaadu yay lumin qiimahaaga guud iyo qaayahaagu yuu dhicin dabaday ha quusane qosol nolosha oo farax ballan iigu qaadoo markastood qushuuciyo gasho xaalad ballan iigu qaadoo markastood qushuuciyo gasho xaalad qiiraa isku qaba indhaha oo qaada waanadaydaas ballan iigu qaadoo wiilkeenu qalanjooy waa astaantii qoyskeeyuu u liidan qayrkii qayladiiyo canaantiyo ka ilaali qowl adag markuu qalad sameeyana waa abuurta qofnimee u qabooji hadalkoo qunyar hooyo joog ku dheh hadduu qaadir daayana berri iyo qofkuu noqon qorshaha waalidiinta iyo korriinkaa ka qaybee toosiyo u qalloocana ballan iigu qaadoo qabyo yuu dareemine qaybtaan lahaa iyo taadiiba kor u qaad qurumaha adduunka iyo qoomkaad la nooshiin ruuxba qaadad weeye qofkatiisa kula dhaqan oo ah bini'aadmiga sabaale kacdada nolosha caqlinkooda isagoo aan caqli darra mar kastaba gabadhiisa ku tugmin qurumaha adduunka iyo qoomkaad la nooshiin ruuxba qaadad weeye qofkatiisa kula dhaqan
hana qaadan kibirkiyo qursiga bahdilida qaynuunka noloshana unu raac wixii sax hooyo qaaliyaatee quwaddiisa gaarkaa kugu qayd ilaahay hooyo qaaliyaatee quwaddiisa gaarkaa kugu qayd ilaahay kaa qari dhibaatada kaa qadi balaayada kaa qabay wixii daran kuu saki quraanjada qur kastiyo wixii nool ruux ilaahay qirayaa qabrigiiyo qiyaamaha ku qasaari maayee waa inoo jannada quman waa inoo jannada quman maansadani waxay ku siisay inaan soomaaliyeed oo keligiisa tukaano geeyey waa dhakhtaroodanaynida waa tukaane dadku binaadamka isbitaalka ma leeyahay haddana jacaylka uu qof u qabo iyo rabitaanka nolol qoysnimo oo uu qof keliya ka rabo oon dumarka oo dhan ahayn ayuu keligiisa hadduu dumarka wada doonayo keligiisa ma horeen qof waa qof ilaahay u gargaaro naxariista jannada ka waraabiyo mansada intaasay ku dhintay iyadana ilaahay nolosha khayraa ugu dhamay mansadan mustafa saydaan iyo abokor iyo shiine ayaa lagu mahadcelinayaa oo farsamada iyo tuubida lahaa tamartooda iyo waqtigoodana gelin waa dhammaan waa mahadsantahay بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر waxaan filayaa inay tahay markii labaad aynu isugu nimaadno muuqaal fiidiyoya iyo maaso waa mid kale oo ka mid ah maasooyinkayga tii iyada ka horreysay waa maasadii gadaal noqon iyo wiilkii caruurtiisii gabadhiisii kala daba taariibay maasadani cusubi aniga dareen gaar ah ayay gelisay qisada ay ku timina waa qiso kale oo jacayl ah qoys ka mid ah qoysaska Soomaalida dhex martay fasaxana ayaga bixiyay laba dhalinyaro way dugsiga sare wada dhigtaan kalgacayl iyo jacayl ka xaqiiqada ee mustaqbal doonka waa dhex maray hab dhaqan ku saabsan hab akhlaaqeed ku saabsan nolol doonida ka muuqato niyad iyo qalbiga sanadkii dugsiga sare intuu dhamaanay waa wada socdeen kalgacaylkooda mid buu ahaa farxadooda mid bay ahayd xanuunkooda mid buu ahaa noloshoodana mid bay ahayd waxay ku kala duwanaayeen labada goobood ay kala seexdaan oo ahaa mid walba guriga waalidkii dugsigii sare waxa uu dhamaaday iyadoo midba midka kale qalbigiisa ku jiro wiilku waa danyar iyadoo wax badan ma dhaanto scholarship buu helay inuu waalid kala shaqeeyay dalka Hindiya ayuu scholarship ka helay waa ballameen waxay isku ogaadeen anoo wax baan ku soo dhiganayaa adna halkan wax ka sii baro waana isku maqannay waad qiyaasi kartaa laba qof oo muddo wada socday jacayl xaqiiqi ka socday kala taagitoogeed waxa uu soo kordhiyay kala dheeroonteedii iyo kala maqnaantoodii wuxuu soo kordhiyay hilow booliyow iyo khilaaf hor leh oo uu qayb ka yahay jacaylka faraha badan leh iyo kala maqnaanshaha fog sabab intaas oo tahay muddo 2 sanadooda markii uu xagga inanka wax ku dhiganayay xaaladii jacaylku intii way ka badatay dareenku intii waa ka batay culayskuna mid kasta intii uu ka batay
mar iyo lababa iyada waalidkeeda arrimo guri waa la soo hadal qaaday oo iyada xaggeeda kamaysa qarina way u sheegtay mid iyo labadaaba isna culays ku korodh inantii taagta waxay isbaatay inay ninkan culays saarto si isagoo halkaa u jooga ay waradiisa u noqoto meher ugu dhaco iyadoo ka walwal qabta weydinayso waaye xumaan kalena aanay uga jeedin culays bay saartay sidan kuguma sugi karayadaa badatay waalidkiibaa waxbaa isu yimi duruufo nololeed iyo xaalado iyo amuura isu yimi yarkii culays baa ku kordhay warwar baa ku kordhay fikir baa ku kordhay dan iyo xaalad baa ku kordhay hawshiisina dhan buu ka wataa mar iyo labuu taraygareeyu iskuday bal inuu inantaasi siday doonaysaa suuro gasho adduun baase gabay jeebadda aabbihiina wax badani kuma jiraan tawooyadiina hadalkeeda baddaa curad baa ka weyn isna adduun ma hayo qof iyo laba intuu cid wax weydiina inuu la hadlo wuu ku hungoobay go-aan aniga igu cusub qaadashadiisu orana aanan u maqal ayuu yarka qaatay qoraal kuma arag buug kama akhriin meel weligay yarkaasi u qaatay wuxuu go-aan ku gaadhay labadiisa keliyood inuu mid cuno weliba tamidigta qarashka laga siistana jacaylkiisa ku dabaro dhakhtar buu tegay xaaladaasuu u bandhigay ninkii dhakhtarkaa wuxuu ku yidhi mar kale soo fikroy kaale uu soo fikray uu ku noqday wuu celiyey wuxuu ku yidhi soo fikir uu soo fikray uu ku noqday soo qaado looyarkuu noqda waa kaxaysta miduu fikirkiisa ka dhaadhiciyey yarkii lacag waxoogaaya ayaa farta laga saaray qalliinkiina u sameeyey kelidiina waa lagala baxay fasaxiir jaaniskiisibuu ku beegay big buu soo yidhi diyaaraddii buu soo raacay isagoo bilaa keliya mudduu halkaa ku yaro nastay halkanuu yimi gabadhii buu dee u sheegay markuu soo baxay inuu diyaar yahay iyadu horeba waxay ugu tiri wax yar baan hayaa ee waxaan wax ku soo kordhi wixii ay haysay haadii dhakhtarkii adeer xubnahaaga jirka mid baa maqan waana kelida midig waana laga saaray ma ka warqabtaa maxaase ku dhacay jawaabtiisi waxay noqotay ilmo sidaa uma weyne bukaan jiifa saasoo barkima ugu jiifa ilmadiisaa dhagaha gashay aabiyi wuxuu ku yidhi aabba haweenayii jawaab wuxuu ku yidhi aabba gaa cunay lacag baana siistay si aan xaaskaygaa ugu helana anigaa kelidaydii dhakhtarka iibiyey adduunlaanii jeebkaygaana sababay gabadhana maan ka maarmi karayn inankaa caday sinta ku sidaana ka dhashay ee sanadkii waxoogaaga sanad jira waxyaab labay noqotay inantii mar allaaliyo markii ay maqashay kelidii reerkayganu saaray si aan u helo way qaraacantay koomay geli gaadhay xataa dhakhtarka uu calooladay lagu tiriyaa ilmaa ka timi ninkii dhakhtarka ahaa inankii aabbihii wuxuu ku yidhi uma baahnin sa'iwaalo fara badan sabab iyo amuurtaa looma baahna ninkani keli buu baahanyay waxaana xanuunaya sakaraadka uu yahay waa kelidiisii mana noolaanaya haddaanu kelidii helin jawaabba intaan cilli bixin gabadhiisba halkan ka soo booday dhanna ka ooyeysa dhanna inay hadasho ka rabta wuxuu hadalkeeda ku fahmay dhakhtarku labadaydaba anaa u saaraya hadduu u baahanyay ee ma ii noolaanaya dhakhtarku wuxuu ku yidhi adeer allaha ku sharfo labadaadaba uma baahnee taada miduunbuu u baahanyay idinkan idin kala saaraynaa waa in qalin dibaddaa marka laydin diyaareeya xaaladaas halkaasay
istaagtay. Dhakhtar dibadda baa loo diyaariyey, waa lagala shaqeeyey. Labadii ubadahaaba waa la qaaday, Indiya dib loogu celiyey. Dhakhtar baa la jiifiyey, keliyaha loo kala saaray. Inankii iyo inantiiba markii qaliinkoodu dhamaaday, muddo in yara kadib, waxoogaa saacadaa kadib, dhakhtarkii inanka aabihii jawaab ku soo celiyey oo isagu la socday markaa iyo nin adeer oo u fudeeyey in halkaa tagaan. Wuxuu ku yidhi qaliinka waan ku guulaysanay, laakiin ilama aha inuu inankaaga noolaanayo. Sababa qaliinkii hore quseeya iyo sababa qaliinkan dambe quseeyaba. Ninkaasi inuu nolol leeyahay ta Ilaahay mooyahay ilama aha. Tan uma baahna, waa ninka lidiisa cunaya. waa u fadhiistay, qurux baa loogu beheriyey, sacabkaa loo tumay, sawiraa la qaaday, waa la isugu yimi, asxaabta hambalyeysay. qayb naftiisa ka mid ah ayuu qofkiisii ku helay. waa nin iyo gabadhiisii kulme noqoy, jaamacaddiisiiba ku noqday, intiibay uur yeelatay. waxbarashadii iyadu ay wadatay waa ka hadhay markay gabadh culus noqotay. markuu ogaaday inay xilligii gabadhiisu ku soo dhadhowday tahay, ayuu mar soo yara big yidhi, xaaladdeedu ka warhelay, waxbarashadiiba ku noqday. ilmihii wuxuu dhashay isagoo jaamacaddii ku jira. muddo yar baa uga harsanayd, waa dhammaystay. waddankuu guri buu la galay. iyada imika culayskii intuu maqnaa waa ka raysatay, waa qofkeedii. cabsi badan oo waad waayi meesha ma taallo, laakiin dareenka jacaylku iyo qalbiyadu sidii bay maqnaansho isu tabayaan. waayahay, guri bay galeen, nolol fiican oo qurux badan bay qaybsadeen. muddo 2 sannadooda oo ilmihii ay leeyihiin ka tegay inankii, xaalad caafimaad baa la soo daraystay. wuu yara adkaystay, dhakhtarka waa ka meermeeray. markii dambena yaaliin buu soo dhacay. soo dhicidii uu soo dhacay baa dhakhtarka la geeyey. aabbihii hooyadiiba waa nool yihiin. dhakhtarka la isugu tegey. markii dhakhtarkii la geeyey, baaritaankii dhakhtarka kadib wuxuu ku yidhi, ninkan waalidkii meh, waa kan baa la yidhi, tanna waa gabadhiisii. wuxuu yidhi, ninkan keli baa ka maqan, ninkan keli baa ka maqan. aabbihii wuxuu ku yidhi, waade dhakhtar, ma midaan ilaahay u abuurin baa, mise maya waa lagala baxay buu yidhi. hooyadii baa maqlaysay, gabadhii baa maqlaysay, xaaladdaa isbedeshay. waa maqsinkii beeshin ku yaalay oo gaara. gabadhii waa adkaysan weyday, xaaladii farahay ka baxday. waxayse moodayaan waxa jira waxaan ahayn. wuu ka soo baxay koomadii. aabbihii iyo dhakhtarkii baa u galay iyo xaaskiisii. hooyadii lamay socon markaa. su-aalunbaa meesha taallee. wuxuu weydi gabadhisa iyada xaaladdeeda. okay, kelidii maadoo saarin buu yidhi. meye kelidii waa loo kala saaray. meye niyow qaliinkii wax ka qaldameen hore, kan dambana dee sidiibaa ninkan nin ilaahay qaadanayo ayuu la muuqdaa. isma qarinaysay. gabadhiisa waa loo sheegay in qaliinkii ninkeeda lagu kala duuraystay. qaliinka hore dhaa wax ka raacay. ninkaasina geeri u dhowey. maansadu labadaa qof waxay sidhaahdeen iyo xaaladdaa ayay horta qusaysaa. qisadii maansadaba gabadhaa fasaxday oo anagu saragnay. wuxuu ku leeyahay, waa dardaaran, macno dardaaran. 2 qof maqsinku beeshinku ku ahaa ku wada hadlaya. iyadu haatan markay waxoogaa sariirtii iska jiiftay, maalmin dambe waa iska kacday. isna waa kan iska liita. maqsinkay ugu gashay. waa ilaahay iyo iyada iyo isaga afkii ay ku wada hadlayeen oo isu hogaamaysan. marka
inankaa kalidiisa u galay si uu gabadhiisa u helo aabbahaas nolosha bilaadanku uga dardaari weliyey inuu ka tegayo inkastoo aqoontana ilaahay bilaadanku siiyo haddana loo sheegay geeridiisa wuxuu yidhi hasaluugin qalinkiyo qadarkiyo wixii dhacay hasaluugin qaybkiyo wixii nolosha kuu qoran rabbi baa naf qaadee ha qawadin haddaan tago waa qaali samurkiyo ha ka tegin mid qaraweyn ballan iigu qaado indhahaagu yay qubin ilmo dhabanka qoyso qayliyo baroor qudha qowlkaagu yuu noqon ballan iigu qaado haddaad tahay qofkaygii dibintood qaniintiya ha isqoomamaynoo qalbigaagu yuu jabin ballan iigu qaado quruxdaadu yay lumin qiimahaaga guud iyo qaayahaagu yuu dhicin dabaday ha quusane qosol nolosha oo farax ballan iigu qaado markastoo khushuuciyo gasho xaalad qiiraa isku qaba indhaha oo qaada waanadaydaas ballan iigu qaado wiilkeenu qalanjooy waa astaantii qoyskeeyuu u liidan qayrkii qayladiyo canaantiyo ka ilaali qowl adag markuu qalad sameeyana